mootooyinkaasi ayaa iyaguna ku dabbaaltegayaan oo waa qaybo kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybahaasi mootooyinka iyagu waxaana laami doona mar dhow hub iyo waxyaalihi kala duwanaaha ee soo maray ugu kala duwan oo gawaadhi ay ridayaan ayaa halkaasi ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haatan waxaa laamay hubka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu u adeegsado daafacaadda dadka hooyo cadawga Soomaaliyeed sharka iyo halaaga baaba'a ugu baday ee cadawga Soomaaliyeed u dilay in uu taaga ka mid ah dhulkeena u soo xadgudbo gawaadhi ayaa jiidaya hubkaasi hubku aad iyo aad ayaa u noocyaday weynuna si aad iyo aad ay ula dhacayaan marka ay arkaan ciidamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed halkii ay adeegsanayeen inay daafacaad dalka hooyo adeegsanayeen kala duwan oo halkan lagu soo bandhigay oo qof wal oo ka tirsan dadkaasi hayraha kaga gadaaman gedidaasi ay aragtaan ayaa shuuriyay ay si degdeg ah shucuur wadanin gawaadhida ay aragtaan waxa ay jiilaan hubkaasi madaxda wax laysa ee gumaada cadawga ayaa loogu talagalay cadow kasta oo dalka Soomaaliyeed u saaxiibaa in lagu baabiyo waa nooc kale oo iyaguna gawaadhi kale oo hor leh oo iyaguna jaya madaxda kala gadisan dadweynaha ku daaman hareeraha kala duwan ee gadidan ay soo marayaan ciidamada qalabka gaar ahaan xagga dalka Soomaaliyeed qaybihii ugu dambeeyay waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad u faraxsan sida يعني ورثنا هذا ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga muujinayaan in ay diyaar ugu yihiin daafacaada dalka hooyo iyagoo adeegsanaya hubkaasi casriga ee madaafiicdaasi ay arkaan ay ka yihiin ee ay jiidayaan gawaadhaasi kala gedisan qaar waxay leeyihiin qaar fartaay qaar kala nooc dadku waa idin aragtaan qaar waa fadhiyaan qaarna waa ay habeen walima dhawaa waxaad aragtaa in ay soo daba xiriirsan yihiin hubkii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo halka uu ku dhamaado laamiga ee aragtaan ay soo daba xiriirsan yihiin waa qaybo kale oo leh oo ka tirsan hubka halkan ay u soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan hubka roobka loo yaqaan waa hubka meel fog wax ka dila ee baabiya cadowga dadkiisa ku guuray ku baabiya ku walaciya وهو أدركان تجوه هنا ويكون بديه أو تسليم ثم تسياج أخرى وأنا أقول لهم تسياج أخرى أو هذا أي ملها أكوبا بيأكل ليه وياها فرها بدن ما تساوى كذا كذا وقيد جلسة هذا أي مركي أي أركان هم فرها بدن مرة يا إذا ما تفعل ذلك ثم هذا كذا تعادة له يقول يا أخوان إذا ترتاجي يقول كذا صعدا ما قلنا وهبka ay aragtaan oo mid walaha uu la socdo sarkada xoogga dalka Soomaaliyeed qayb kale ayaa soo bilaabmay oo tirsan hubka xoogga dalka Soomaaliyeed u adeegsado hawlaha daafaca dalka xir iyo dhulba waxa ay kuwa lagula dagaalamo diyaaradaha وهبكها إسقوا صودا ديارها سوحة هودا جمهورية الديمقراطية الصومالية وما هذه أيضا أركان أي دولة عن حضرتك بدل لو هي صودا كتبت ديارها غالبا شيء ذي لكن لسه ديارها وعديد شيء ذي مع واقع معنا هو أن أبى سعيد الجو qaybo kale oo hubka ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyagu soo loo gawaadhi kale oo lixdaagi ay jiido kuwaasna waxa ay saamanka
والطواريخ يلك زيارتها توضح لها يقرأ زيارة كيسا طواريخ عارض هذا أيام توحل كان أولا إذا ديمقراطية الصومالية بعيدا ودا يا غلب صورتي في الأرض من أذكر وحأيهن هو الغضة ضادية ديارتها أدجل في الوقت ضيّة وليه يجب السعودة وينها سكادها ألا أيضا وريا خير الديارة دي هذا الذي أنا كان أو يكون الضغط ديارتها ديارتها يقول رحان أي خير قادمية وأفر ديارتها إن شاء الله وبدأنا يسرط لبا وكادين لبا قريرها ayaa ay ka socdaan diyaaradu wixii xaalada ay ugu qabanaysa dalka qaadana waxa soo bilaabaya qaybo kale oo ka tirsan xiliyada xajiyada wadamada xoogga ka qabanaya ee markaas ay ugu galaan cadawga dadka ay ku qaadeen dalka looga gaaraan cadawga uu ugu galo gudubka uu ku walba waxaa darakan in uu hogaaminayo nin kaliya ah dalka murida dimuqraadiga Soomaaliya dabaaldega koobiya labaatan Oktoobar geegida ay raadaan loo sameeyay badbiyaha ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo daraasay ka sameeyaan waxaa soo muuqda dabaaldegi waa kuwa iyaguna kufaysyada iyo aagaga hore ee cadowga markiiba inta ay galaan baabi'iya ee cabaadugaha ka dhigan waa nooca iyo kale oo cusub oo ka dhisan qalabka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kaarayaasha dadku xeeraha ayaa ay ka tagay degida iyadoo oo ay daawanayaan si aad ay ula dhacdeen kaarayaasha dabaabadaha iyo reeyada halka maraya ayaa uu ku ganaawa hareeraha iyo meel kastoo kale waxa uu ku leeyahay meel ka ganaawa walba waxa uu ku taagan oo hogaaminaya hada wararka biya hada wararka biya oo iyaguna qalabkooda joogista maanta la kan hubka kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan deedeeyada taangiyada iyo dabaabadaha qaybahan waa dhamaadeen haatan waxa soo socda kuwa silsilada lahaa oo ah taangiyada dabaabadaha weeye oo kala nooc qayb waliba waxay leedahay hawl gaar ah qayb walbana waxa lagu qabtaa oo ay daafac iyo weerarba ay ka gashaa hawlo u gaar ah dadka iyo arrimaha kale ee weerarka saacada lahaa meelayo badan ee ay ka dhigaa tan wax cadowgana markay doonto ku gashaa walba taliyaheeda ayaa hogaaminaya
iyaguna way ka qayb qaadanayaan diyaaradaha waa in aragtaan sida ay u damaashaadayaan saddexdaa diyaaradaha kaan ah dadweynaha aad ugu helayaan marka ay marayaan xoogga Soomaaliyeed badinkii kalena oo gaar ahaan badinkii kalena armada iyagoo muujinayaan iyo sida kartida ay u leeyihiin inay u damaashadaan hawada Soomaaliyeed sida ay doonaan cadowgana ay ka yeeyaan diyaaradaha waa diyaaradaha kuwana waa kuwa hoos marayay oo ahaa ciidamadii ilaa iyo hadda sii kala madaha taangiyaha saarayaasha kuwana waa sharci gaar ah ku leedahay guud gooniyo qarab gooniyo ayaa ku hayay anaaba ay filayaan ay ka iyo qadin hada kala duwanay xagga tiknikada gaar ahaan dabaabadihii ayaa socda ilaa cadowkani arkaya ayaan u soo hamadoodeen aadka intoo hiisaceen in uu dalka Soomaaliya uu ku qaado weerar xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda tiknikada kuwoodii cirka ahaa iyo qayb waliba way ka qayb qaadanaysaa dagaalka magaalada 22 Oktoobar iyagoo dadweynuhu aad ay ula socdaan oo la dhacsan yihiin martiyaha dhacaya ma wali waxa socda kuwoodii dagaalka inta taliyaha ay hogaaminaya waa u diyaar ah diyaaradda golaha xisbiga dowladda ka tacan Soomaaliyeed kala kulmiyay Jalaal Suleymaan Cabdullaha iyo askaankii dowladda qaadiga Soomaaliya iyo xisbiga oo adarkaan qoraalkan uu soo bandhigay dadka fanaaniinta farsaxadina ay soo bandhigeen waxaa kaloo hareeraha ka xiga astaamihii ugu bulshada أنا لو قلت لك على التجربة أفريقيا النادي عرفتك عن سوريا لغاية أكتوبر 1970 كان قادة الجمهورية الديمقراطية الصومالية. dadweynuhu fagaaraha kan maanta ay idin aragtaan daawadayaal si aadaha ayaa ay u daawanayaan waxyaalaha ay ku soo bandhigayaan halkan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybihii kaleba haatan ayaana iyadoo oo uu maaday fantasiin ku diyaarinaya sidii madaxweynuhu ugu ambaqay lahaa ee galida uga ambaqay lahaa kadibna madaxda kale kadibna dadweynaha ciidamada adinatana bank ayaa u diyaaraa salaantii madaxdii daawanayay fantasiyaha baaldega 22 جمهورية الديمقراطية الصومالية كان محمد جبر أو سلامي مدحدي كره كتب لنا نتيجة يدل دبا أو أي وليان مدحدي كره مدينة بحيث على هي مدحدي كره ولا كذا قال فيها وحى وكذا جاي هذا من سلنا تبوكها إذا أو ذا الزاري اللي هو كلا كلا فانتسيه كذب ومركي ومريا أيا أيدي حكان يدعو مدحوين ويوسي يدعو هذا الجوي لقى بحلها يدعو برنكدي فانتسيها أنت كذا كذا معي مدحوين إذا لسيادة هي مدحلة كذا هذا وها أي قوم بضحية يعني halkii baa ay faraay lahayn madaxdii kale oo ku go'tiinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya qodaya gudaha xisbiga dowladda Soomaaliyeed salfiyad salfiyad oo baabuuray taasi waxa lagu leeyahay in uu dhaqaaqo baabuur madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo fantasiyaal ku taabay ay ku dhamaadeen madaxdii ay sii jireen madaxweynaha ay dhaqaaqay
gaarigii ayaa dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo caalamka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ka badanayo waa aydin aragtaan madaxweyne Jaaladiyaad iyo madaxdii kale oo codka intaasina uu ku dhumaaday xamuudihii loogu talagalay gaaraha 22 Oktoobar 1983 dadweyne aad u fara badan oo kumanaan ah ayaa ka soo qayb galay maanta gaarahan 22 Oktoobar sanad guurada beetanaariga wadada gacanka 22 Oktoobar 1983 iyadoo lagu soo bandhigay qoraallo fara badan iyo sawirro fara badan oo lagu sharaxay goobta gaaraha 22 Oktoobar waa ciidamadii muusiga gaacayay oo haatan iyaguna aan babaxaya